waa tahay injineer Faisal Cali Waraabe su'aasha ugu horeysa oo goobjoog FM ay ku weydiinayso waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya 20 ka tirsan ayaa soo gudbiyay mooshin ka dhana heshiiska dekada Berbera arrintaas sidee bay idin kula muuqataa waxa noo muuqdaa wax aan suurtagal ahayn oo anagu imaka baarlamaanka Soomaaliland oo fadhiista oo kayda waxaan ka hadlayaa mooshin magalaan taay Uganda saameeya oo maxaa ula jeedaa Soomaaliland iyo Soomaaliya waa kala waddan markaas awood la kumalay iska Soomaaliland Jubaland baa awood ku lahayn waxaana ku lahayn garowe ayaan ku lahayn Baydhabo aan ku lahayn laakiin magaalooyinkaas aad tirinayso dawlad goboleedyo ayaa ka jira dastuurka Soomaaliyana waxaa ku yaala in dawlad goboleedyada ay xubno ka yihiin dawladda federaalka haddana saamaanku mala kuwa ay ka yihiin saamaanku mala waxa qamarka kacaya markii Jubaland ay samaysatay baarlamaanka Jubaland Axmed Nuur soo gareeyay baarlamaanku sheegay inta sheegaysa uu fadhiistay resolution buu ka soo saaray waxaas waxa la aqbali karaya maaha idna meesha kama qaadin kaas waxa uu ahaa baarlamaankii 9aad kana waa baarlamaankii 10aad arwaa isku mid ah isku nafuunay waa wax bedelay heer bedelay xawaari ay markay heer burxa kala waa markaa uu ahaa chairman buu ahaaye annaga waxaas waxa naga ma qaadiyaan waa niman soomaaliyeed iyo magaalada cadaawadooda muujinaya waddanka hadii hadana waan xidhnaa meel alla ku xidhiyo oo ay soo mari kareen qofka ilaa waxa ka soo saaraya go'aan waa boqolnimada halkaas taala weeye أنا waxaa sameeyay weydiinin wax saameyn ugu leeyahay ma jirto baarlamaan aan mushaarkooda la bixiyaa weeye baarlamaan aan qayb waddanka ku weeye baarlamaan waxa weeye cid soo dooranaya lacag inta laga soo ururiyay akoontan qofkeen baa weeye waa waxa nafta la isku maaweyninayo anaga waxa saxanaga yeelnay kuwaas sheegtayna geeyay meeshana dhulka iyaga yaqaanaan Berberana kama talin karaan injineer Faisal Cali Waraabe xildhibaanadii baarlamaanka ee maanta golaha shacabka mooshinka u qeybiyay ee 20 ka gaaraya qodobada ay ku andacoonayaan waxaa kamid ah in heshiiskan dawladda Imaaraadka loogu ogolaaday in Berbera ay saldhig ka sameysato uu dhaawacayo midnimada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waradu ka wada jibaan waxa sheegta anagu heshiisyada ka wada waxa dawladda ku sheegtay دستوركودا قايد كمان هي وباين كمان هي وكيل كمان هي مما مشى لسمي وخيرات الصومالي لو قرنيو دولة أنتي هو بيننا وإنجليز كورنو كي هاي وضدوا دي لقيسانيو ومعدنتوا دي لقرنيو والذي لواتن كنا عسكري جوجان ودانيرتي الأرسمان هناك ساق حينشوا حتى لو مشي كره حتى ينتبه كي أنولين أو سعودي هنوشين أنا يوحنا مية الكلام وقت جاي في خسارين أيام مير الله مير الثانين كل يوم تشوفه بس على قوي عليها ودليل بحيرين مجال ساي متى كلام دوتشو حالنا متى كلام متى مير الله مير الثانين كلام مرجع وقت جاي قادم عليه laakiin dawladda federaalka awood bay u leedahay Soomaaliya inay Imaaraadka kala hadasho oo ay tiraahdo arintaas la gaciidan jooji dawlad ma wax dhimiyo dawlad waa tii iska cashuurta qaadata ee dalkeeda xukunta ee dalkeeda ogolyihiin ayaa maxaa loogu habsadaa maanta Soomaaliya lacagta la sii wala siiya hadda maanta laga soo Imaaraadka intuu bixiyaa uu ka jaray macaawada ka jaray xagee keeni iskuulada bisiyaad uu ka joojiyay war waxaan dawlad ma ahayn naftiina khiyaameynina anigana waxa ay weydiinayeen wax kale ay weydaada waxay kale weydo waxa ay gala bacnay waxa dawlad ma ahayn injineer Faisal Waraabe horay waxa u jiray dabcan sidaad la socoto wada hadallo u dhaxeeya labada dhinac waa Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalladaas dawladii hore ee Xasan Sheikh inkastoo ay hakadeen hadda wax rajo ah oo aad ka qabtaan dawladdan inaad wada hadalladaas horay u sii wadaan ورسالة دود ما رجعنا مكوح ويا قبائل كاسكت هي كمان ساي معنا كسلة مكرانية أود اللي هنا أنا راح نوض رياض فيها أنا في تلقي سومالي وإن تري تليان بيستي هنا وح مغلان ويقولون كبابيان ومرادين إجاران
dadkooda mideeyaan shisheeyaa iska saaraan dadkooda ka naxaan markaas wax nala siman aan helo in la hadli doono insha allahu tacaala laakiin wadahadallo horey u socday baa jira soo ma aha oo adinka iyo soomaaliya idin dhexeeyay waan ka tashanna hadda inaanu sii wadno waxaan lasii wadnay inaanu magaalaan saaye ka joojino waa arrin noo taala anu ilaa hadda uma aragno meesha dawlad jirto waa dawlado isbedber yaala laakiin madaxweyneha la doortay dalka hadda ra-iisul wasaare uu leeyahay guddoon baarlamaan buu leeyahay soo maaha adeer waxa waa magac madaxweyne waana doortay yaa doortay sida doortay organaanka wasaare waa waxa ka socda waa aragtaa waa magac soomaaliya lagu guumaysanayo soomaaliya waxa ku jirtaa gacan guumaysay ku jirtaa Michael Keaton baa xukuma ingiriis baa xukuma laakiin adinkuba Michael Keaton waa uu idin yimid oo waxa uu idin sheegay in Somaliland maamul ka mid ah Soomaaliya ay tahay soo maahan adeerna ma oran kale u kaadiday waa kicin waxaas wax aqliga ma ahay anigu Soomaaliya ka mid yahay Puntland baa xitaa Soomaaliya ka mid yahay magaca Cabdiweli adduunka dhan marayay sidoo soo samaysanaya kida Cabdiweli baan xitaa ka mid yahay Axmed Madow waa ka mid yahay waxa uu guuray bayaan soo raacay sameeyay waxa xafiiska ka furtay oo baydhaba ka mid yahay wadamadu waxa Soomaaliya kala goostay idinku ma aragtaan waxa ay haysta xaasibnimo iyo Soomaaliland ka amaan lahaydeen oo lahayn gacansiya ayaa xuduud Soomaaliland baa ku dhacay weeye jawaarina waa mid socona aqliga Maxamed Sheikh baa ku jira jawaarina waa rin reer bayd reer haysta waxa kaba isku afur manihin ma taqaani kaasna marka adeer waxa weeye maxaad ula jeedaa arrinta maba maqaano afbay ma igi af Soomaaliland waa kala taag loo daaday marka adeer anagu waxaan meesha ku haystaan kala dad baan nahay kala culture baan nahay siyaasadda kuma kala duwan dhaqan ku kala xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaa ku jira wasiiro qoonda ahaan gobolada waqooyi ka soo jeeda waliba Somaliland beesha dhexe sidee baa u aragtaan waa shakhsiyad soo shaqadontay laakiin gobolada waqooyi ay matalayaan soo maahan oo ay ka socdaan waxay ku jiraan Djibouti ku jiraan qaar Soomaaliya original Kenya ku jiraan Ethiopia ku jiraan kuwaas magac bay la baxay dib u qoyay baa la yiraahdaa adeer marka waxaas wax naga qaadnay Soomaaliya waa wada jiro la shaqeeyo shakhsi micna ma lehe shaqo kala qabso oo anigu intaan inoo hato madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre diyaar muutin inaad hadda wada hadal la furtaan oo aad la hadashaan ama wada hadaladii hore u socday aad hore u sii wadaan adeer Farmaajo Xasan hawlba u taala Soomaaliya hadalkiisu ma taale dal baa leeyahay madaxda ka tin hay muujinay dalka madaxkeliye habdeen hanabad geliyeen hayshiyeen Soomaaliya soo celiyeen shisheeyaa ka saareen shanta madaxweynaha baabiyeen dadka hawshooda ha qabsadeen anigu halkan hawl ugu banaanaa dabcan injineer Faisal Cali Waraabe waxaanu ogeyn oo aan la soconay wareysi hore oo goobjoog aad u siisayna aad ku sheegtay in doorashooyinkii aad u hakiseen xaaladda abaaraha ee deegaanada Somaliland aawadeed bal xaaladii abaaraha bal hadda bal inooga waran halkee bay wax marayaan abaaraha alxamdulilah rabbil caalamiin waa ilaahay ma barin ilaahay naga saaro dad baahida baa jirta roobku waa meel ka dhacay maanta tacaawunadii dad baan soo gaaray inta hore anaga gacantay ku waday dadkayga aad iyo aad heer dibadda gudaha aad u dadaalay waa la tacaalinaa ilaahay waxa ka barnay subxaanahu naga qaado marka waxaan jecelahay inaan kasoo bogsan doono insha Allah